asalka Soomaalidu Afrikaan mise Carab Soomaalidu waa dad madow maariin ah islaam ah waji furan waxay ka mid yihiin qoomiyadaha u waaweyn oo iyada oo lagu jiro 2025 uu wali muran ka ogan yahay halka ay ka soo jeedaan israhan waxaan shaki ku jirin Soomaalidu inay tahay ummad Afrikaan ah oo degta dhul weyn oo ku yaala geeska Afrika qoomiyadda Soomaalidu waxay si ballaaran ugu nooshahay Soomaaliya Djibouti gobolka Soomaali galbeed ee Ogaadeniya iyo dhul ballaaran oo ka tirsan waqooyi bari Kenya marka laga reebo xeebaha qallalan ee waqooyiga Soomaaliya ku yaala Soomaalidu waxay degaan dhul fadsan oo bannaan daaqsin ballaaran iyo togo qulqulaya leh waxay ku hadlaan af ka tirsan laanta kushitiga ee qoyska Afro-Asiatic horeyna loogu yiqiinay Hamito Semitic dhoodaan Allah u naxariiste waa kii ku gobiyay 7aadkii Ilaahi makhluuqo dhan iyo dunida meegaaray muslimnimo kolkuu soo dajay ee Muhammad soo saaray ee magaca aan sheegano iyo midabka noo yeelay oo uu madow nooga dhigay ama se maariinka ee uu mabda'a noogu xidhay muuminnimo khaasa walle inuusan meeqaam xil leh iyo meel xun noo dirin aan u soo noqdo Soomaalidu ma Carabba mise waa Afrikaan waxa ka horeysa jawaab su'aal kale oo ah Soomaalidu xaggee asal ahaan ka soo jeedaan taariikhyahanada qaarkood waxay sheegeen Soomaalidu inay qayb ka tahay ummadda isirkeedu ka soo jeedo Afro-Asiatic people tan macnaheedu waxa weeye isir isku jira oo ka kala yimi Aasiya Carab ama jasiiradda Carabta iyo geeska Afrika xaqiiqadu waxay u dhowdahay inaan asal ahaan ka soo kala jeedna laba isir oo midoobay kuwaas oo kala ah Carab iyo Afrikaan waana tan sababtan aynaan midna Carabnimada iyo Afrikaannimada si toos ah isugu tirin buugaag taariikheed oo aan arkay waxay sheegeen in Soomaalidu ka soo jeedo 4 qabiil oo la kala yiraahdo Salaaniyiin oo asalkoodu ka soo jeedo Masaarida waxayna ka kooban yihiin 7 qabiil oo waaweyn Xatra oo ah qabiil Carbeed oo ka soo jeeda Yemen Jaalu oo ka soo jeeda Tanzania Soomaalidu waxay u badan tahay inay yihiin reer Xaam waxayna ka sii galaan oo ka mid yihiin qoomiyadda la yiraahdo Kushitik oo ay ku abtirsadaan dadka degan Ethiopia Kenya iyo Suudaan aasaaska bulshada Soomaaliyeed waa qabiilo iyo reero isku xiran kuna dhisan dhiig iyo dhalasho kuwaas oo ka soo farcamay hal awow oo la wada sheegto qof kasta oo Soomaali ah waxa ku waajibay inuu qayb ka noqdo arrimaha bulshada ee reerka uu ka dhashay hogaaminta reeraha Soomaaliyeed waa rag waana la kala dhaxlaa marka aynu ka hadlayno isu aqoonsiga Soomaalida ee Carabnimo waxa uu ku dhamaanayaa dalka Yemen xiriirka Soomaalida iyo Carabtuna Yemen ayuu ka soo unkumay arrinkaasi wuxuu dib ugu laabanayaa waayihii hore ee dhaqanka iyo taariikhda Yemen iyo Soomaalida kuwaas oo si qoto dheer isu dhaxqaaday waxay Soomaalida iyo Yemeniyiinta ka dhaxeeyay taariikh dheer oo ganacsi iyo isu gudub bulsho ah Soomaalidu waxay degeen magaalada Cadan ganacsatada Carab ee Yemeniyiinta ahayna waxay ka ganacsan jireen magaalooyin xeebeedka Soomaaliya ku yaala sida Muqdisho iyo Berbera isdhaxgalkaasi wuxuu sahay u noqday in la wadaaga dhaqamo caadooyin iyo xataa afka Soomaali badan ayaana ku abtirsata Yemen af Soomaaliga laftigiisu waxa ka buuxa kumanaan ereyo ka yimi Carabiga Yemen lagaga hadlo sidoo kale laba kamida beelaha ugu tunka weyn uguna saameynta badan dalka Soomaaliya Daarood iyo Isaaq ayaa sheegtay in asalhaani ka soo jeedaan Carabta Yemen ku nool Soomaalidu guud ahaan waa reer guuraa xoolo dhaqata tartanka adag ee kheyraadka dhifta awgi waxay noqdeen kuwa si weyn u dirira marar badanna waxa ka dhaxulca colaado iyo dagaal qabiilo iyo ceelal ku salaysan islaamku waxa dhulka Soomaalida soo gaaray xilil dhalashadiisii hore ku beegnayd markii Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo Allah weyn dushiisa ha yeelay saxaabadiisu u hijroodeen dhulka Xabashida ee Boqor Najaashi magaalada Zaylac waxa ku yaala masjid lagu magacaabo Qiblatayn oo taariikh ahaan ku beegan qarnigii 7aad isla markaana loo aqoonsan yahay mid ka mid ah masaajidda ugu daada weyn Afrika Soomaalidu waxay noqdeen dadkii ugu horeeyay aan Carab ahayn ee si rasmi ah u qaatay islaamka qarnigii dambe magaalooyinka qadiimiga ah sida Muqdisho Zaylac Baraawe iyo Berbera waxay noqdeen magaalooyin islaamka rug iyo saldhig u ah ganacsiyana ku caanbaxay Muqdisho waxa mar lagu naanaysi jiray magaalada islaamka waxayna gacanta ku haysay ganacsiga dahabka ee bariga Afrika isku soo wada xooriyo inkasta oo qaar ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ay sheegtaan asal Carbeed sida Daaroodka iyo Isaaqa cilmi ahaan arrintaasi ma sugna waxayna ilaha cilmiga sugayaan in Soomaalidu tahay qoomiyad Afrikaan ah oo ka tirsan kooxda Kushitiga lehna af dhaqan hidde iyada u gaar ah oo Afrikaannimo waxaan ahay Muxuudiin Cabdi oo juqraafi kala socotaan